Haddii aad waalan tahay wajeer aad is a common saying among the Somalis. It roughly means that if someone is mentally unstable, he should go to Wajir. Into this madness, I think it's this solar. We are here to understand the connection between being mentally unstable and this town, Wajir. Most mental people in Wajir are not actually from Wajir. We were informed that they come from other places like Garissa, Mandera, Isiolo, Marsabit, or across the border in Somalia. In 2016, the first psychiatric facility was unveiled, although it's not admitting patients. It only administers injections to outpatients who either come on their own or are brought by their relatives. dadka waa la yaqaan dibeysan ee maxadib nagu hayaan qofkii saaid noqdo markoo dad wax ku dhufto ma ogi ay ka dibeysan maxadib nagu hayaan waa aragti wiilasha yar muxaadaraadka maybe alafu that's why maybe Allah dhahay waa dad waalada wajeer aad ma hadsaas lagu soo qabtaa maleena dawladda waxaan dhiiray wiilasha yar oo maybe meel walba uu ku dhex jiraan muxaadaraadka qashinka cunayaan inay maybe shaqo raadiyaan. If you go to many parts of the streets of Wajir, you will going to see several people who are mad. That is the main reason I think which has contributed for people to say that Swalanta Wajarat is the place where they can get everything. Most of the people who are mad, they are normally drug addicts. That is the main reason why they come here, for them to get access to Mira, smoking, cigarettes and everything else. They are drugs actually. I am a psychotic and I suffer what they call drug-induced psychosis. That's what can I had a transfer. ayaan kacay oo dhacay markay hadda dibin fiican email fiican oo hadda lagu daryeelo qofka markuu jiran yahay mare aniga ku hadlay hadda waxaan ka soo baxay 2 years oo jail prisonta which is against the law of this land hadii ay jirleed mana koodi meel fiican oo hadda lagu daaweeyo dadka jiran dibka badan oo jeelkaasi taatiga soo gaaray oo kala dadka ma soo gaareen oo daawalanta wajeer aad wax cusub ma waxaan soo maqli jirnay ilaa yarantaayni midda kale dadkan farada badan horta oo waalna wajeer imaanayn waa dad baadi ka yimaadeen oo xoolaha ka soo dhamaadeen mostly meelaha kale markay daawalanta wajeer aad wax loo dhaw waxa waay wajeer ayaa waalid u badan oo dadka waalna u badan yihiin marka dadka waalna wax u badan yihiin wajeerna waxa waay meel oo lagu xanaaneeyo ma jirta wadkan wax maanta ugu cusub ma horta waa soo maqli jiray cabaar markaan waxaas maxaa keenaa shafwan waxan magaalada iyo qoraxdan waxan mostly cause gareya requesting the government to open a rehabilitation center and also to function the psychiatric unit that is open next to the referral hospital. Wajere hey bariyo aslaga